بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواada qurxi caafimaad ma sha Allah. Maanta waxaan idin wadaa creamy chicken pasta si fudud loo sameeyay, macaan badan ma sha Allah, caafimaad leh insha Allah. aan isla sameynaa hadii la yiraahdo. asxaabtina la joogtay waa mahadsantiin, kommentiyadiina quruxda badan. asxaabta cusub fadlan soo dhawaada, subscribe channelka gambaleelkana ku dhufsa saa u heshaan insha Allah fiidiyoyada aan soo wado hadii la yiraahdo. ma sha Allah channelkan saa uga barateen cunto caafimaad leh, qurux badan, fudud insha Allah. waqti badan aan ka qaadanayn, hooyo kasto busy caawinaysa hadii la yiraahdo. isla sameeyna bastadan maanta. waxaan isticmaalayaa basta barilla. ma sha Allah biyo waa ii karkareen waa kana. waxaan ku darayaa qaado barkeeda cusba insha Allah hadii la yiraahdo. bastadii baa iyadana ku soo darayaa ma sha Allah. waqti badan ma ka qaadanaysa bastadan, aad ay u macaan tahay insha Allah. xaajiga iyo caruurta iyo kulli ma sha Allah aad ay u jecel yihiin bastadan, waa ka helayaan hadii la yiraahdo. waa kan hadda bastadii baa ku daray ma sha Allah. inta bastada dhinacayga bislaanayso, chicken kana isticmaalaya ama hilibkan digaaga waa soo saafay ma sha Allah, si khafiif ah u soo saafay. waxaan ku darayaa filfil iyo xawaajiyo aan isku soo darsaday ma sha Allah, iyo basbaas yar baa isku soo shiitay. anaa diyaarsaday inta badan xawaajiyadeyda. cusba ku daray hadda ma sha Allah. dhinaca kalena intoo kale aan ka marinayaa hadii Ilaahay yiraahdo insha Allah. marka ma sha Allah saana inta kale si fiican u dhexgelinayaa. marka hadaa rabtid wax yar waa ku dhigi karaa si oo u dhexgala xawaajiga, laakiin insha Allah hadda hore ka dubaya horaan ka sameynaya dirbeeno. waa kan maqligiya dabka soo saartay, saliid yar ama subag ka jecesha isticmaalaysa. saliid yar baa hadda ku soo shubay. chickenkii baan saaray dhan kasta. marka waxaan ku haynayaa hadii la yiraahdo 7 ilaa 10 daqiiqo insha Allah. dabku waa ii gaabsan yahay, dab dheer ma ahan, waayo uu gubanayaa asagoo si fiican u bislaan hadaa dabka ku dheeraysid. marka ma sha Allah aan isla socona. ka raali noqdo ilmo yara ciyaaraya halkaas, baby yara ma sha Allah codkiisa insha Allah. marka chickenkan si fudud oo macaan buu kugu bislaanayaa insha Allah. bastadana I hope ina ka heli doontaan hadii la yiraahdo insha Allah. dhanka kale u rogay marka chickenkii insha Allah. bastadina dhinac baa ka karinayaa, iyadana ka diyaarinayaa. waqti badan ma hadee u badato 20 daqiiqo inta ka qaadanayso insha Allah. hadda chickenka waa bislaaday, waa ka guray ma sha Allah. xabad basal soo diyaarsaday jarjaray waa ku shubayaa marka insha Allah. creamkii ka sameynayna bastada aan ku dari lahaa insha Allah hadii la yiraahdo. marka ma sha Allah wax yar oo subagana waa ku soo darayaa. basasha waxaan rabaa inay si fiican u bislaato idinka Ilaahay insha Allah. basasha saa ognahay cuntada way macaanaysaa ma sha Allah, si fiican u macaanaysaa. hadii aad shiishid suugada bariiska wax kasta ma sha Allah dhadhan ba u yeeshaa insha Allah. marka hadda jab yar oo subag aan ku darayaa ama butter ka u taqaanid. wax yar oo jab aan ku ridayaa insha Allah. waa ku bislaynayaa marka basasha insha Allah. qadadan qada fudud waaye, inta badan maqaaxiyaha laga cunaa creamy pasta chicken, laakiin wax kasta gurigaaga waa ku diyaarsan karaa waqti badan asagoo ka qaadan. waxa gacantaada ku diyaarsatidna caafimaad weeye ma sha Allah. oo waayo waxa ogtahay wax kasta afkaaga gelinaysid waa inaad ka warqabtid waxay yihiin. gurigaaga markaa ku diyaarsatid waa nadiifsanaysaa qudaartaada, cunto healthy aad diyaarsanaysaa, laakiin maqaaxida ma ogid waxa ka cunaysid waxay yihiin. marka ma sha Allah inta laga dadaali karo maqaaxi in wax laga cuno insha Allah ka dadaala hadii la yiraahdo. hooyooyinka cuntooyin fudud insha Allah oo waqti yar ka qaadanaya ku dadaalaya inaan soo geliyo hadii la yiraahdo. hooyada bisiga caawinaya ma sha Allah. basasha waatana hadda way bislaatay, saasay u guduudatay. xoogaa dhowr daqiiqo dabka ku hayay.
dab gaaban baana isticmaalayaa insha allah. Marka waxaa ku darayaa cream oo heavy cream oo whipped heavy cream baa isticmaalayaa. whipped heavy cream waaye insha allah. marka maasha allah isla socono si fiican. baastadan way fududahay. meesha suugo ka diyaarsan lahayd creamkan diyaarinaysaa, baastada ku dhex daraysaa. caruurta aad ay u jecel yihiin maasha allah, wayna u fiican tahay mararka qaybtood in caruurta cuntada loo kala badbedelo iyo xaafada dhan insha allah. xoogaa yar marka 2 daqiiqaan ku haynayaa dabka. cheese baa ku darayaa marka ayadana xoogaaya. waa isla arkaynaa cheeseka markaa ku daraya haddii ilaa yiraahdo insha allah. marka maasha allah runtii aad ay u macaan tahay. xoogaa waxay leedahay qofkii iska ilaalinaya inuu weight gain gareeyo ama ka cararayo xoogaa baruura, ma fiicna inaad badsatid. asbuuci maalin oo kaleeto waa iska caadiya, wax yaraa ka cuntid. marka maasha allah waaya waxaa ku sameynayaa cheese, caano culus oo dufanku ku badan yahay, waxaasoo dhan baa ku jira, iyo baasta ayada awalba ahayd carbohydrate ka samaysnayd. marka maasha allah saanu noqday creamkii. cheeseka markaa ku daray waa ka damiyey dabka, waayo waxaa dhalaalinaya cheeseka. marka horeeto caanuhu dabka saarnaayeen oo kululaayeen insha allah. baastadii waatan halkaana kusoo diyaariyey. waa ku darayaa marka creamkii. waa kana maasha allah aaday u macaan tahay runtii. hadday caruurta ku bartaana insha allah marmar u bedel caruurta cuntada. haddaa 7 beri cuntooyinka la gadisan siisid, inta badan ilmuhu ma nacayo cuntada aad siinaysid insha allah. marka maasha allah hadda waa ku daray, si fiican aan isku soo dhexgelinayaa, walaaqayaa. chickenkiina waa ii bislaaday xagga kale insha allah. ha isla socono, soo tijaabiya qadadan insha allah. waqti badan ma idinka qaadanayso, waxaana rajeynayaa inay caruurta jeclaan doonaan iyo xaajiga iyo maasha allah xaafada dhan. waa kana marka chickenkii oo soo jarjaraya insha allah. si slice yaryar aan u jarjarayaa dirbi idmo maasha allah. waa kana saxankii anaa kusoo diyaariyey, ama parcel ama kabsaraad ba waxaa haysatid yaraa dusha uga daraysaa, cagaar yar ku qurxinaysa ka dhigaysaa insha allah. soo tijaabiya, qada aada u fudud, waqti badan kaa qaadanayn, macaan weeye maasha allah. haddii ilaa yiraahdo haddaa ka hesheen fadlan like, subscribe channelka, u share gareeya asxaabtiina, la wadaaga insha allah. commentigana nagula wadaaga waxii aad jeceshiin inaan soo geliya haddii ilaaha idmo. codsigiina waxaan ku dadaalayaa inaan soo fuliyo haddii ilaaha yiraahdo insha allah. channelku waa channelkiini maasha allah. aad ba u mahadsantihiin daawashadiina iyo commentiyada quruxda badan aan ka bixisaan. soo tijaabiya cuntooyinkan fudud, anna waa kusoo dadaalaya oo caafimaad leh insha allah inaan idin soo geliyo maasha allah. waa mahadsantihiin. please subscribe and assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.